هذا الكيان بدي مرة مد وحن كلها ضيا دتك يسبدل دونك منا وحن كلها ضيا مامولك منا وحن كلها ضيا وجالس يبيش يصير دتك كم وحن كام سنة يسبدل دونك وحن كلها ضيا دتك يسبدل دونك وإلهي بعيدنا بوري نن ولا أنا مجرو نن أبيه نولي مجرو نن هو يدي نوش مجرو أظن قريبا كحكومة هاي dadkan inta idin humbaleyaan oo cagaha dhulka idin ku dhuftaan aad ka cabsanaysaan ilaahay baad doomowtiin ilaahay caabudo oo dadka ka cabsanaysaan iska daayo maseerkiina cadays maamulkana hal baan leeyahay horay baan oo la hadalay markii koowaad markii labaad markii saddexaad markii boqolaad markii kumaad baan maraynaa waxaan leeyahay dhig buuxiyaan dhawaa maqlaan aanay yar ku darsada halka nin baa ruwa la culoobay intuu halka dilay marka wuxuu ilaa wax iga ogaataa ruwaa meeshan kugu arkay inaan kugu dilaa maalinta dambe ruwaa hal intuu ka dhagay garab fadhiyo uu imaaday oo ayar hilibkiisu u cunayay seexday markaasuu intuu waran la gaaday buu ku qadbay ruwaagi baa intuu kor u firiyo oo yiri oo uu calacalay wuxuu waran ku dhacdo uu calacalay wuu ku dhaato wuxuu ruwaayo adaa dilay hashay ibaha toosnay ama waa talfoolxumo in adeerka ama abaha baa dhalo odaad wadaagtaan arxanimo sidii iga sii waad garambu anu ka gaban maayo nimanka maamulka Axmed Madoobe weeye waan isoo garanayna waxaynu u sameeyeen way ogyihiin way hadda wadana way ogyihiin kana qaadan mayno anaga muxuu ahaa kursi xaraan lagu qaatay intuu naga gadmo in lagu maamulo qaadan mayno horena waan u diidnaa haddana waan cadaynayna maamulkana intaas aan leeyahay dadka kale Soomaaliyeed meesha fadhiya raala iga ahaadaan cawliyahana hal baan leeyahay cawliyahana waxa idin ka maqan niman wasiirada inoo ahaa oo inaga aan wasiirada ka dhiganay oo moodayay inaan wasiiradii hadii ay Axmed waayaan ay waayayaan qabiil bay wasiirada ku heleen qabiilkoodii bay u joogeen qabiilkoodii wasiirada ka dhaxeeyaan ku soo noqdaan ama nimanka dhaqanka lagu sheegay anagu dhaqan nagama maqno cawliyahan waa la isaqaanaa bahiya boqor buu leeyahay dadka lama muruqtoojiyo inuu Axmed Madoobe ina cali sokor u xareeyay maxamed suweer annagana shal sultaan noo xareeyo inaan dhimanaa nooga fiican annaga sultaanka anaga waa la yaqaanaa webiga markii la soo gooyay hal sultaan baan leenahay inta kale to waa anigoo kale kii nabadoon boocbooca iyo kii nabadoon la doortay anigoo kale weey shanta nin ee suldaamadeena loo xareeyay wiilal cawliyahana weeye inta cawliyahanimada waan u ogolahay laakiin suldaannimo naguma matali karaan ugaasnimo naguma matali karaan nabadoonnimo naguma matali karaan mid ayeydii mid ay noqotay xataa kuma jira iska badaa mid aabihii noqday cawliyahana marka dadka idinka maqan waa wasiirada ballanqaadka ila qaada inaan wasiirnimadooda ku celinayno jeebka Axmed ayna ku jirin jeebka cawliyahan ku jirto guud ahaanna dadka Soomaaliyeed isbedel doonka oo Ilaahay ka cabsado ninkii dhinto guri meesdo biyo matiida inuu baa ka soo haray aanu caawa maanta hadii la dilo geerideeda xalaal weeye 12 ilmood baan dhalay nolosha maxaan ku sifalay 45 sano waan jiray wara cabsanina cadaysta masayrkiina waxa aad wada leediin waxa xaq u qaatana kula shaqeeyay waxa xaq darro ku qaatana ka diida maamulka waliba waxaan u sii raacinayaa dad guddi baan dhisnay haddaad samaysaan muxuu ahaayay baarlamaan baan samaynay haddaad madaxweyne ku dhawaaqdaan mid baan ku dhawaaqaynaa hadda maxaan kala qaadaynaa dadkuna way naga dhaxayaan haddii la diido oy koox yar diido adduunka arkahaya beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka iyo inta samaha jecelbo waxaan u sheegaynaa isbedel doonka inayna dagaal wadin inayna dadka dilaynin habeenkii inayna dadka dilin inayna maalinkii jidka dadka ku xabadaynaynin inay aan mataqaanaa intii dharka loo soo bedelan rag kale to aan mataqaanaa wax raftaan sameeyay la dhahayn isbedel doonku waa nabadoon waxa nabadoonka la dhawaa isbedel doonka waa nabadoon waxaan diidanahay wixii xumaa ee soo maray waxaan qaadanaynaa waxa sii socdo cid kasta oo diidan isbedelka diidan waxaan u sheegaynaa oo misid oo u diraynaa waxa ay wadaan inaana kol la qaadanayna waday wax kasta dhacaan aniga oo hadalka badinayn waxaan leeyahay walaalahana isbedelka diidanow ninna nin caano oo malis dadku waa walaalo waa la isku wada tiirsan yahay ciidamada waa la wada leeyahay
dalkana waa la wada leeyahay sharcigana waa la wada samaystay hadday qolo gooni ay iska qaadato oo ay dhahdo annagaa leh ma shaqaynayso aniga wiilkaygaa ku jiro kaan adeerka u ahaabaa ku jiro kaan wada dhalanay baa ku jiro annagoo wada dhalanay ninkii rabaa arse keligii inuu qaato waad riyootay inaadana hurdada ka toos kan labaad waxaan leenahay annaga haddaan nahay isbedel doonka qabiil ma nihin soomaali baan nahay isbedel doon baan nahay berrina waa kan asaga ku bedelo berrina waa la bedeli saa dambana waa la bedeli aniga waxaa weeye anaa qabsaday ee waan idin haystaa ee waan idin yeedhini ma yeelayno adduunkana laguma maqal mana jirto marka ninka intaa ku hindisoonhayo waxaad u soo noqotaa miiska nabadda ku soo noqo walaalnimada u soo noqo in wax la wada leeyahay xasuuso dalkii la wada leeyahay xasuuso inay wiilasha la wada dhalay xasuuso hubka aad adiga hadda hayso inuu magaca uu ku yimid la wada leeyahay xasuuso jidkii la soo maray raggii dhex daadsanaa xasuuso kuwa maalinka aad garanayso meesha wada daadsanaayo waxay ahaayeen xasuuso kuwa magaaladan adigu kuu dhiibay xasuuso intaa haddaad xasuusan weydo jiritaankaaga ma xasuusanayn 4 sano yuu lahaa qofkii hadda xigay madaxweynaha hadda jiray 4 sano lahaa sharci bay ahayd waqtigan markii la gaaro in uu badda soo dhigo la tartamo sharci buu sidaas ugu yimid oo sharci buu ku yahay isbedel doonku wuxuu kale oo isbedel doonku uu baahida keentay ay tahay waad ogtihiin Jubbaland 8 sano waad ogtihiin 20 kilomitir dhul aan dhannayn bay fadhidaa 15 degmo yay ka kooban tahay Jubbaland 15 degmay ka kooban tahay degmadan Kismaayo iyo degmadaas leeyda Afmadow yaa laga hayaa dalkii intaasaa laga hayaa ayaguna aan isku gudbin baa laga hayaa haddii mar ay saas tahay oo 15 degmo laba kaliya laga hayo waxa isbedel khasab buu ku iman hayaa in isbedel waxaan ku sheegayaa toddoba degmo cadow gacantii bay ku jirtaa xoreyn bay u baahan tahay 6 degmana waxa weeye siyaasad xumay ku maqan tahay oo lama shaqayso maamul waa la kasban waayay ma garanaysaa intaa waa imisa 7 degmo maqan iyo 6 siyaasad xumo ku maqan oo la kasban waayay oo gadaa la kasban waayay kolkii la isku daro iyo labadaas aan joogno oo aan isku gudbin baahidaasaa keentay in isbedel la doono oo dad halkaa ka dhaqaajiyo horay u dhaqaajiya in la helo baahidaasaa keentay sharcigaana wuu keenay isbedelkaas sidaasuu ku yimid haddii la diido isbedelka sharciga ku yimid haddii la diido in odayaal dhaqameedka xalaasha ah in ay dadka hagaan oo xulaan haddii la diido muxuu ahaa dadka rabitaankooda shacabka haddii la diido oo qof in la soo xulo oo 3 lagu khasbo annaguna waan diidnay waxaa leexsan oo aan waan diidnay mana yeeli doono laba kala xoog badna dadku way naga dhaxeeyaa dalkuna way naga dhaxeeyaa waxaan leeyahay soo reebta nimankiinan uu kursigu u sii muuqday halacsan hayow waxaan u baahanaa Jubbaland inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal oo hal nafar beeshiba laga soo dooranay oo beeshiba hal nafar ay keenayso waxaan filahayaa ugaaska cawriya dhaqanka cawriyahan waa asaga dhaqanka oo maanta cawriyahan uu leeyahay oo maxaan ku radaa dhulka jooga ama gada ha noqoto ama waasow ha noqoto meel walba oo cawriyahan uu jooga waxaan malay nin reer waas qoraa markuu soo istaago asagaa loo istaagi jiray waxaan u malinayaa cawriyahanow meesha la yidhaahdo bay 3 ugaas baa jirto cawriyahan 3 ugaas markay imaadaan waxay daba fadhiistaan inuu waas qorane boqortooyada reer waas qorane
waxaan filahayaa waa inaad og tihiin boqornimadii cawliyahan in la baabi'iyo oo sandanadii soo jireenkeeda intaa jirtay in la baabi'iyo oo uga dagaalamahayaan nimanka siyaasiyiinta ee maamula Jubbaland waxaan u malayn haddii boqorkii nala dagaalamay idinkana noloshiina inaan loo ogolayn cid noloshiina diidanna inaad maxaan ku dhadaa indhaha ka dhowrataan oo daba fadhidaan oo ninka idinkeenaan maalin walba ayna dhahaan ugaas weeyo aad iska daba fadhiisato arrintaa bahdil bay nagu tahay waxaan ku dulqaadan karrana maaha waxaan aqbali karrana maaha dadka sidiisaba jiritaanka dhaqanka lagalama dagaalamo jiritaanka dhaqanka annagii ayay la dagaalamahayaan nimanka maamulka waa dad jiritaanka cawliyahan baabiin oo jiritaanka Soomaali weyn baabiinaya mar haddii Soomaalida dhaqanka lagala diriro waxaan u malayn ninka la yiraahdo siyaasiga wuu yimaada haddana wuu tagaa laakiin dhaqanku ma tago mana nabaad guuro wuu taagan yahay cid walba oo imaata wuu la jiraa waxay aniga ila tahay Jubbaland waxay u baahan tahay isbedel waxa weeye Jubbaland way istaagtay way israacaysaa waa bil furso ninkii isku daya inuu Jubbaland maanta fadqalaleeyana waxa weeye dacar khadhaad buu ka banaya waxaan leeyahay walaalaha sida qalaad wax u wada aan jecelahay anigu aanan nacbayn inay soo hagaagaan oo Jubbaland midnimadeeda saan u jecelahay noola jeclaadaan oo waxa ay guntiga gashadeen ay miiska soo saaraan oo beesha caalamka ay u dhigan nuglaadaan oo madaxda Soomaaliyeed federaalka ay u dhigan nuglaadaan oo annaga oo odayaashoodii ay noo dhigan nuglaadaan hadday yeeli waayaan aakhirlaan iyo adduunlaan baa u dambaysa inta waxaan u sheegayaa walaalahay oo dhinac isku qoqobayo oo meesha badda hadda isku ururiyay badda iyo baridaaba ka fiican waxaan leeyahay badda ka soo baxa barida u soo baxa isku mid baan nahay fadqalala ma rabno dagaal ma rabno dil ma rabno dadka la leeyahay sida khaladka loo leeyahay hal iska daayo waxaan leeyahay ummadda Soomaalida maanta la laayay ee xalay la laayay waxa weeye arrintaas waxaan leeyahay dadka sida yeelahayo waxa weeye arrintaas waxa weeye ka soo noqda annagu tuhum baan qabnaa shabaab maaha waxa dadka leeyahay argada dadka hadda maanta xabadda tooska loola dhacayo waxa la dhacayo waa ciidamada amniga lagu tilmaamayo waxa la leeyahayna waa ciidamada amniga kamid ah arrinta maaha marka arrin shabaab lagu tilmaami karo waa arrin aan ahayn askar murantay maaha askar dhul isku haysata maaha askar lacag ka dhaxaysa maaha waa arrin maartay si siyaasiyan u dhacaysa way arrintaas waxa weeye dib ha looga joogsado dadka dhintay ee xalay dhintayna waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto dadkii dhalayna ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo iyo suldaankii toddobaadkii hore dhintay Allah u naxariisto ummadii uu ka tagayna ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo ilaahay badal khayr ha ka siiyo waxaan leeyahay anu hadalka maanta maana jeclayn waa xogaa waa ligu yar khasbayay soo ugaaskii baa jooga ilaahay samir iimaan ha ka siiyo dadka ugaaskii baa jooga maanta oo culays baa dhabarka iga saaran ugaas maxamuud ugaas qorone ugaas yusuf waxaan kaloo inta ka salaamayaa nabadoonnada cawliyahan nabadoonnadiisa way wada joogaan iyo ugaasyada kale ehelka oo kale oo ciidada aan nahay oo Soomaaliyeed ay ka soo qayb gashay shirka ka soo qayb gashay iyo inta kale oo ehelada ah ama mutacalimiinta ama gabdhaha sharafta leh ee reer Jubbaland isbedel caawiyaanka ah ayagana waan salaamayaa inta kadib waxaan rabaa inaan meeshan ka caddeeyo waama adi Jubbaland laga soo bilaabo baardheere ilaa iyo meesha aan joogo lagu keeno laba ugaas baa xukunto labada ugaas waa midkii gada ee ilaa dhinacaasi adbu arag xagga jira xukumaaya waa ina ugaas qorone ugaas Xuseen ugaas Maxamuud ugaas qorone ugaas Yusuf iyo 6 nabadoon oo la shaqeysa ayaa ka shaqeyn jirtay dhinaca soke ee waama xageed markii la yiraahdane ina ugaas qorone iyo 6 nabadoon baa la shaqeynaysay dhinaca Ali Sokor saldanada nimankaas iska lahaa 6 nabadoon baa ayaan la shaqeyn jiray 4 iyo 10 bay isku yihiin
weligoodba nimankaasaa waddanka xukumi jiray oona ayaga saldanada iska lahaayeen intii ay gacantooda ku jirtayna laba ruuxna isma hirtin jirin laba ruuxna isma digaali jirin laba qabiilna isma digaalami jirin nabad baa lagu wada noolaa ehel baa laa waa la isjeclaa maamulkan axmed madoobe markuu imaaday nabadoono cusub oo artificial naloo keenay oo bacrimisaa naloo keenay waxaan idiin sheegayaa hadda meesha cidda fadhida oo gooshan iskale waa cawlyahan lixdii nabadoon ee cawlyahan way fadhiyaan ugaaskii cawlyahan oo boqorkaa wuu fadhiyaa kuwa axmed madoobe uu kaysaday meeshane waa kuwa bacrimis oo meelaha uu ka soo aruursaday nama maalan isma dondoonkana kuma jiraan ugaasna ma aha nabadoonnana ma aha ilaahay waxaan ka baryahayaa xasanaad badan iyo khayr badan baad carabkiinna iyo indhihiinna ku kasbateen in ajir iyo xasanaadba ilaahay idinka siiyo intaa kadib waxaa la yidhi waalay wada jir bay wax ku leedahay waxaa weeye soomaali ninkii diida intee u socdaa soomaali diid waa ehlunaar wey soomaali diid meeluu joogaba ama bari ha jiro ama waqooyi ha jiro ama koonfur ha jiro soomaali diid waa ehlunaar maxaa yeelay soomaali waa laangaab wey soomaali 9 milyan iyo 10 milyan baa soomaaliya lagu sheegaa soomaali ummad laandheer ah ma aha 100 milyan ma aha waa 9 milyan 10 milyan inahaasay u dhaxaysaa intaasaa dibindaabiye iyo dhibaataiyo dhammaasho lagu hayaa oo waagii ilaahay kor ka keenaba 100 baa sii dhimanaysa wixii iyaga ahaa haddaan saaka qoys u celinno qoyskuna magacyuu la baxayaa isna waa islaynhayaa waxaa fiican kolka sida ilaahay sheegay wactisimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu in xariggii ilaahayna la qabsado aanan la kala teginoo soomaalinimada la ayido haddiinan soomaaliyey iinan midoobin dhaxal baad noqonaysaan siyaasi iimaan ma leh siyaasi waa nin waadan nin iimaan leh ma aha qaraska tuur weeye ninka siyaasi la yidhaah qabiil inuusan macno lahayn baan idiin sheegahayaa wiil caydiid ka raganimo badan soomaaliya kama dhalan yaa dilay caydiid hawiye ma dilin abgaal ma dilin murasado ma dilin sacad baa dilay muxuu ahaa caydiid ninka la yidhaha sacad baa dilay bal qabiil baan idinka warramahayaa cabdirashiid cali sharmaake yaa dilay ogaadeen ma dilin hawiye ma dilin mareexaan ma dilin kii dad u xigay baa dilay war nin walbow sabab horta aan walaalka ahayn ma lihid kullu nabiyun lahu fircoon baa layidhi nabi ma jiro ilaa hadduu jira lahu fircoon kuwaas sida xun wax u daydayahayeed arkaysaan faraaciintii bay nasli ku leeyihiin ilaahay shartooda ha naga najeeyo shartooda allah naga najeeyo waxaa weeye wax midnimo iyo khalaaf la'aan lagu waayeyna tafaraaruq iyo kala tag lagu heli mahayo intaa waa tii daneed ee guud ee soomaaliyeed haddii aan ka baxo midda hadda saaka jubbaland taalla war jubbaland soomaaliya waa u wada dhimatay soomaaliya waa u wada dhimatay nimaan wiilkiisa saaka ku maqnayni ma jiro soomaaliya waa u wada dhimatay waxa saaka jubbaland loo yidhina waxaa weeye waa community mid ah oo walaal ah oo wax isku darsaday wey waa federaal wey community baanna gobollaannu kala degnaa degmooyin baan kala degnaa wax baan isku darsannay war haddee wixii aan isku darsannay ma cid gaar abaalahoo sheegan karta ma cid gaar abaa sheegan karta cid gaara ma sheegan karto ninka saaka jubbaland anay igu kooban tahay lahow waad khaldan tahay abtirna dad anaa u xiga axmed maxamed islaan ugaaskiisii baana dadna anaa u xigo saaka haddii la isku abtirsado baahalo oo baahtan adaanu wadana haddaanan aniga gardarradiisa qabanin cid qabanaysaay ma jirto axmedow
axmedow dhudhuba oodan iyo dhiraad jabaaxaysaa meel cidlo abaad gudaysaa mas-uuliyad iyo madaxweyne waxaad ku noqon kartaa reer jubbaland oo ku doorta oo raalli ka ah baad ku noqon kartaa awood saaka ummaddan nin ku qabsan karaayo ma jiro ina adeerow dadka tafaraaruqa iyo kala qaybinta ka daa oo dadka Soomaaliyeed adoo wiilkooda oo u soo halgamay dhax fadhiiso ilma adeerayaalow idoorta dheh waxaan inta ahayn waxaan khasaare ahayn oo kala kulmaysaa ma jiro fi dunya wal aakhirah aakhirana xisaab baa ku sugaysa adduunna xisaab baa ku sugayso dadkan dad xabad lagu layn kara ma ah bal intay tira leeyihiin fiiri dad xabad la maysa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Jubbaland argagixisada laga daayo doola tuska laga daayo dadka hantida lagu doola tusahay ayaga iska leh waa dhaqaalahoodii waa canshuurtoodii waa dekadoodii dadka doola tuska laga daayo waxa weeye miskax ka maqan maan walaalka bay ku jirtaa baa la yiri hawada yaysan walaalow foorkay kuwa saaka munkarka iyo macaasida ehelka kuwa ana meel ku geyn mahayaan waa ku dhumin hayaan waxaan leenahay Allah idin soo hanuuniyo idan man nacbin wiilashayadii baa tihiin dadkiina irjac ila al-asal dadkiina dib ugu noqda ilaahayna u noqdo ilaahay ka yaaba ilaahay baan ku dhaartay waxaan ilaahay idin qorin inayna leefaynin oo inayna dhadhaminayn baa ilaahay goog ma dhadhaminaysa waxa weeye waxaan leeyahay hadalkayga waan soo gaabinhayaa Soomaali hamidowdo arrimaha doorashada ee la leeyahay saddex keena horaan uga hadal anigu hadda dadkan meesha lagu aruuriyay ka hadli mahay dadka meesha lagu aruuriyay Axmed ku aruursaday waa ka beelihii ay ka dhasheen ciday meesha geysteenna ma jirto boqorka ama nabadoonkuna beeshiisa dooratay Axmed Madoobe ma doorto beelahooda dib ha ugu soo noqdaan oo maskabka beeshoodu kaga jiray maskab ha u doontaan Axmed Madoobe maskab ma bixiyo waxa weeye saddexda la leeyahay saaka hal la keeno dadku waxaa la yiri xarqa la taay waa ugu xun ayadana indhaha faraha iskama geliso war anigu waxaan ogolahay inaan ninku keeno oo ninka kasbato ninkuna uu noqdo mid ummadiisu dooratay oo ummadii u shaqeeya haddaad saddex keeni tiraahdo soo adigu inaad midkaad rabto kala baxda ma maxay aniga ii haraya wiilkaas ma ii shaqeynaya wiilka ayaa doortay maadaa doortay mise annagaa dooranay kow hadda maanta cawliyahan 6 xubnood buu siduu nabadoon siyaax u sheegay 6 xubnood buu cawliyahan lahaa mid waaba maqnayd oo hadda taladeedaaban haynay Axmedow adaa shalay lagu dhibaadiyay dadkii lahaana waa u baahan yihiin in shalay dadkii kugu dhibaadiyay aad dib ugu soo celiso oo aljazaa'u al-ihsaan ila al-ihsaan baa la yiri ihsaankooda aad ogaato aday dan ku tahay haddaad saabaalaabo tahay oo waxa gacantaada gaaraba aad la tagayso bari bay taagan hadii ilaahay umul baa qaaday umul muxuu yiri aqlisan muxuu yiri baa la yiri waxaan ka tacsiinayaa oo dhammaan anoo ku hadlaaya afka ummadda Soomaaliyeed ee Jubbaland ku nool waxaan ka tacsiinayaa geeridii ku timid muxuu ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir muxuu ahaa injineer Yariisow iyo gudoomiyaashii kale ee xaafadaha muxuu ahaa gobolka Banaadir iyo muxuu ahaa in alla intii ilaahay muxuu ahaa gacantooda nimanka ku sababay ta'iyo sultaan durre
oo gobolkan Kismaayo ku dhintay intaba tacsiya kii u dambeeyay xalay dhintay intaba tacsiya ilaahay dartii abaan u diraynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa intii ay ka dhinteen samari iimaan ilaahay ka siiyo iyo dhammaan Soomaali weyn baahdi ilaahay Soomaali waa isku ool waanu isku tacsiyeynaa waanu isku ooyeynaa farkaliya nahay ummadda reer Jubbaland waa Soomaaliya Soomaali ninkii diidana raaci mayso ma raacayso ummadda Jubbaland ninkii Soomaaliya